Dadaaladii ugu dambeeyay ee lagu doonayo in dib loogu soo celiyo xiriirka gobolka gaar ahaan gobolka Saaxil iyo Galbeedka Afrika waxaa hareeyay dib u dhac siyaasadeed iyo isfaham la'aan qoto dheer. Wareysi dheer oo uu bixiyay madaxweynaha dalka Niger General Abdurrahman Tijani waxa uu si toos ah oo cad u iftiimiyay sababaha dhabta ah ee ka dambeeya xirnaanshaha xuduudda u dhaxaysa dalalka deriska ah ee Niger iyo weliba Benin. Xuduuddaas oo xirnayd muddo ka badan 3 sano. Wareysigan ayaana yimid xilli dadka gobolka ay filayeen in booqashadii madaxweynaha cusub ee dalka Benin Romolda Wadagani uu ku soo maray guud ahaan dalalka gobolka, gaar ahaan dalka Niger tii uu ku soo gaaray inay si dhaqso ah u xallin doonto furitaanka xuduuddan, isla markaana dalalkani ay ku soo celin doonaan amaba ay ku soo laaban doonaan xayndaabka wadahadalka. Halka madaxweynaha dalka Niger General Tijani uu isaguna ka jawaabay su'aalo badan oo dadku si weyn ay isu weydiinayeen, waxa uuna ku adkaystay in dalka Niger aysan ahayn dalkii markii horeba xiray xuduudda, balse xiritaanka xuduuddani uu ahaa go'aan hal dhinac ah oo ay qaadatay dowladda Benin, iyada oo hoos timaada cadaadiska iyo weliba awaamirta Ururka Dhaqaalaha Galbeedka Afrika ECOWAS iyo weliba garabka dowladda Faransiiska ee uu hogaamiyo Emmanuel Macron. Xirnaanshaha xuduuddan ayaana sababtay saameynta nolosha bulshada dhaqaalaha 3 sano ee lasoo dhaafay. Xirnaanshaha xuduuddan u dhaxaysa magaalooyinka Gaya ee dalka Niger iyo weliba magaalada Malanville ee dalka Benin waxa ay keentay nolosha bulshada oo xumaatay. Dadka ka soo jeeda labada dal ee waa Niger iyo Benin oo iyagu ah kuwa dhiig iyo qoys iyo weliba dhaqan wadaag ah ayaana kala go'ay, iyadoo tani ay keentay inuu ganacsigu xumaado. Gawaarida xamuulka ah ee badeecadaha ganacsiga iyo shixnadaha kale ka keeni jiray dekedda Cotonou ee dalka Benin iyaga oo soo gaarayay dalka Niger ayaa joogsaday, taas oo keentay in guud ahaan ay istaagaan dhaqdhaqaaqa wadooyinkaasi. Shuruudaha hordhaca ah iyo dadaalada ay wadaan dalalka gobolka ee la doonayo in lagu furo xuduuddan, General Tijani waxa uu caddeeyay in furitaanka xuduuddan aysan ahayn oo keliya gelin siyaasadeed oo si degdeg ah loo sameeyo, balse ay tahay mid u baahan shuruudo hordhac ah oo la fahmi karo. Sidoo kale waa in la dhowraa ayuu yiri danaha Niger, sidoo kalena waa in la ilaaliyaa danaha Benin. Waa in la helaa ayuu yiri madaxweynaha dalka Niger Abdurrahman Tijani damaanad sharci ah iyo weliba dhaqan wadaag ah si loo xalliyo arrinta xuduuddan ee soo laalaabatay. Sidoo kalena waa in la helaa ayuu yiri madaxweynaha dalka Niger in ay dalka Benin ka go'an tahay ayuu yiri wadahadal iyo sidoo kale in markaasi xuduuddani si degdeg ah howsheeda loo galo. Sidoo kale waxa uu sheegay madaxweynaha dalka Niger General Abdurrahman Tijani in xuduuddu ay noqoto mid u adeegta labada dal, sidoo kalena aysan noqonin mid loo isticmaalo aalad lagaga hor yimaado rabitaanka muwaadiniinta. Haddaba waxaa isweydiin leh sidee bay ururka ECOWAS iyo weliba dowladaha reer galbeedku ay saameyn ugu yeesheen xirnaanshaha xuduuddan iyo weliba isku dhaca labadan dal. Ururka siyaasadda iyo dhaqaalaha ee Galbeedka Afrika ee loo yaqaano ECOWAS, kadib markii dalka Niger uu ka dhacay inqilaabkii amaba afgembigii uu dalka kula wareegay General Tijani 26 Julaay sanadkii 2023, waxa ay ahayd mid u muuqatay in ururkani uu markaasi ku soo rogay cunaqabatayn daran oo dhanka dhaqaalaha ah. Sida uu sheegay General Tijani, Niger waxa ay gashay ayuu yiri cunaqabatayn ku dhowaad sanad oo dhanka dhaqaalaha, ganacsiga iyo sahayda, iyada oo dalkaasi aysan waxba soo gelin. Go'doonkaasi waxa uu gilgilay Niger, waxa uuna sheegay hogaamiyaha dalka Niger inuu abaal u hayo madaxweynaha dalka Togo oo ahaa ninka kaliya amaba hogaamiyaha kaliya ee muujiyay caqli iyo diblomaasiyad, isaga oo si weyn u caawiyay sidoo kalena u garab istaagay dalkaasi xilligii uu ku sugnaa xaaladda adag ee kala guurka ah, isaga oo madaxweynahaasi fagaarayaasha caalamiga ahi uu ka sheegay in cunaqabataynta loo adeegsado oo kaliya markii ay dhammaadaan dhammaan fursadaha kale iyo xalka oo fashilmo. General Tijani waxa uu si toos ah farta ugu fiiqay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron, isaga oo ku eedeeyay in uu Belgium-ka ku yiri cunaqabataynta saaran dalka Niger ma noqon doonto mid laga qaado abid. taas oo muujinaysa ayuu yiri madaxweynaha dalka Niger
sida go'aanada ururka ECOWAS ay ugu ololeynayeen in Faransiisku mar walba uu baasiin ku sii daro go'aanadiisa. Wareysigan dheer ee uu bixiyay madaxweynaha dalka Niger General Tijani waxa uu ku daray falanqeyn qoto dheer oo ku saabsan sida reer galbeedku ay u maareeyeen dhaqaalaha dagaalka isaga oo adeegsaday tusaalaha dagaalka maanta ka socda dalka Ukraine. Tani waxa ay muujinaysaa ayuu yiri in dowladaha Afrika ay ogaadaan in Faransiiska iyo Yurub aysan qaangaar ahayn amaba wanaag aysan soo kordhin doonin haddii ay tahay in Afrikaanku ay yeeshaan caqli ay ku kala saaraan arrimaha siyaasadda iyo danaha dhaqaalaha. Dalka Niger oo ah dal dhaca galbeedka Afrika maanta waxa uu dooranayaa siyaasadiisa gaarka u ah isaga oo mar walba doonaya inuu ka shaqeeyo sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi midnimada qaaradda Afrika sidoo kalena la iska dulqaado xeriyada gumaysiga iyo weliba dalalka doonaya inay sida casriga ah u gumaystaan qaaradda Afrika. Waxa uu madaxweynaha dalka Niger uu sheegay in maanta Niger ay helayso isku filnaansho dhaqaale iyada oo mar walba diyaar u ah inay difaacato kheyraadkeedii ay kala soo laabatay dalka Faransiiska iyada oo maanta si weyn muwaadiniinteedu ay uga faa'iideystaan sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi kheyraadka uraniumka ee markii hore uu doonayay in uu horar ku boobo. Waxa uu sheegay in Niger maanta dhanka dhaqaalaha iyo amniga ay bahwadaag kala tahay dowladaha saaxil kuwaas oo sameystay ciidamo isku dhaf ah oo hubeysan si ay ula dagaalamaan kooxaha hubeysan ee ka dagaalama gudaha gobolka saaxil. Waxa uu madaxweynaha dalka Niger Cabdiraxmaan Tijani uu xusay taariikhdii midoobeed ee uu soo maray dalka Niger iyo guud ahaan dalal ka mid ah qaaradda Afrika kaas oo looga boobayay kheyraadkooda sidoo kalena loogu bedelayay kaalmada caalamiga ah iyo weliba dhibaatooyinka dhaqaale ee loo geysanayay maskaxda iyo maanka dadka Afrikaanka ah. Waxa uuna sheegay in Faransiiska iyo dowladaha la midka ah maanta ay ka shalaynayaan sidoo kalena ay marayaan ciqaabtii dembigii ay galeen 100 sano ka hor. Umuurahan iyo isbedeladan degdega ah ee ku soo kordhay galbeedka Afrika ayaana imaanaya kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump uu sheegay inuu weerar dhanka cirka ah ku soo qaadi doono dalka Mali iyo guud ahaan dalalka gobolka saaxil ee ka madax adeegay siyaasadda caalamiga ah isaga oo markaasi ku andacoonaya in dalalkani ay u adeegayaan shakhsiyaad gaar ah iyo weliba siyaasad ka madax banaantan caalamiga ah. Sidoo kale falanqeeyaashu waxay arrintan ku tilmaameen in Trump uu aad uga xumaanayo isballaarinta weyn ee Ruushku uu ku yeelanayo galbeedka Afrika gaar ahaan dalalkan la isku yiraahdo saaxil ee gobolka saaxil ku midoobay. Arrintan oo ay biritaarayaan qaybo ka mid ah dowladaha Carabta sida Sacuudiga iyo dalal kale ayaana lagu sheegay in markaasi ay si weyn uga xun yihiin siyaasaddan militariga ku dhisan ee markaasi ka jirta galbeedka Afrika. Fadlan daawade haddii aad halkan nala soo gaartay channelka subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaallo xiiso badan.